Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran ee asxaabta ila ah iyo inta codkayga dib ka dhagaysan doonta muuqaalkaana dib ka daawan doonta. Bacda salaan qiimeeye qaaya mudan walaalayaal fiidiyowgan waxaan doonayaa inaan nigula wadaago oo intii cilmigaygana nigula qaybsado iyo waayo aragnimadeeda nolosha wanaagsan ee nidaamsan qodobka la yiraahdo. qodobkaas oo dhiirigelin badan iyo dhaba adeeg badan u baahan yahay sidaan ognahay adduunka oonan horumarkiisa ciyooba la gaarin dad badanna jah wareeriyey dunida. Si kastoo walaalahayga qaaliga caqabadaha adduunka insaanka soo wajaho ay caadiyan ay tahay haddana midna caqabadihiisa waayo aragnimadiisa uu kala kulmo iyo xigmadda uu ka qaata uu ka gudbaaciyow oo uu ka istaagaa hadduu ku kufo midna sida uu istaagaa adagoo hadduu istaagana haddana mid kalaa soo wajahayso kuf iyo istaag ayuu nolosha ku dhammaystaa. Ayadoo sidaas ay tahay walaalahayga qaaliga waxaan doonayaa inaan ii sheego caqabadaha waxa ay astaamaheeda ay leedahay ee nolosha insaanka kuwa ugu yaryar ee soo wajaha. Sidoo kale waxaan ila qaybsan doonaa halkan qodobka labaad oo ku dheeran yahay qodobka nolosha wanaagsan ee nabadaysan. Qaybtiisa labaad ee ah sidee noloshaada uga dhigi kartaa nolol wanaagsan ee nidaamsan. Tusaale haddaan ii soo qaata adigaas walaalkay ama walaashay Soomaaliyeed oo fiidiyowgan igula qayb qaadanaya. Tusaale ahaan haddii shalay adoo shir leh ka soo qaad shirkaaga adoo u degdegsan uu baskii kaa tagay aad u raaci lahayd oo shirkii ka raagtay shirkii oo balantii aad ku tagtay kala bar maraya oo wax badan ku dhaafeen adoo ciishoonaya shirka haddaad ka baxday oo gurigaagii aad itimaaday oo doonaysid adoo gaajoon oo shir iyo dood ka soo baxay inaad cunto laakiinse qayb ka mid ah cuntada waxaad ku karsanaysay ama dhir ha ahaato ama qudrad ha ahaato inay maqan yihiin adeegii qayb ka mid ah aad ka ciilootay adeegii aad doonanaysay haddana ku soo daashay gaajadii adoo loo balbalsan dabka aad saaratay cuntada. Maanta sidoo kale intaad dharoortii kala haday aad xafiis aaday xafiiskaas oo aad ku isdhahday ciyoob baa ka dhammaanaysa laakiin aad ku yar raagtay adoo wax yar ku raagtay oo shaqana u degdegsan oo qof asxaab aad tihiin aad jidka ku aragto laba kalma intaad tiraahday aad saad shaqadaadii adoo raagtay u tagtay oo halkaas dood kale aad gashay. Haddii shaqadii aad ka soo baxday oo gurigii aad timaaday aad doonaysa inaad haddana waxyaabaha shaqada ku wajahan ama alaabta aad doonayso guriga inaad ka qaadato oo doonaysa shaqadii inaad ku laabato haddana alaabtii aad weysay meel aad dhigtay. Waa caqabadaha caadiyan nolosha adduunka insaanka soo mara intooda badan iyo waxyaalo kale oo ka waaweyn. Sida tusaale haddaan ii soo qaado inay shaqo la'aan ku soo wajahdo muddo kugu qaadatay intaad shaqo ka heli lahayd masruufna kaa soo geli lahaa. Sidoo kale haddii aad aqal rabto inaad ka guurto aqal kala weyn ama caqabad aad uga guuraysa aqal oo caqabad la'aan aqal ah caqabadaas aan lahayn aad doonaysa inaad degto laakiin guuritaankii iyo heladii guriga ee aad dhibaato badan kala soo kulmatay. Hadde walaalkayga qaaliga ah goormaad mowqifka aad doonaysa ka gaari kartaa noloshaada waa markay nolol wanaagsan oo nidaamsan aad leedahay. Nolol nidaamsan qofkaan lahayn hadaf noloshiisa ma gaari karo sidaan dhammaanteena la wada socono. Run ahaantii walaalkayga Soomaaliyeed
haddii aan ka bilaabo dhiirigelinta ama la wadaagta cilmiga sidii nolosha wanaagsan ee nidaamsan hadafkeeda loo gaaro, waa farsamo dhisidda aas-aaska noloshaada ay ka bilaabanaysa aqalkaaga iyo hadafka waxa adiga nolosha ku maareyn lahayd, taasoo la doonaya inaad marka hore warqad iyo qalin usoo qaadato. maxaan warqad iyo qalin aan tusaale niiga soo qaada haddaan nii sheego walaalahayga oo sii qonton galo. abuuraha iyo hogaanka boqorka abuuraha ee hogaanka dunida iyo aakhirada oo na abuurto oo allaha subxaanahu watacaala ah, wixii ugu horeeyay uuna baray uu nagu sheegay diinteena waxay tahay inay uu qalin yahay. maxaa yeelay waxaana la qorin ficilkeeda laguma dhaqaaqi karo, taasoo haddeer aad arkaysid hadaf kasta iyo horumar kasta dunida la gaaro marka hore inay qalin lagu xariiqo. haddii wixii la qorayna la doonayo waxaas wax la fahmi karo oo la aqrin karo, taas oo ay tahay tacliinta la barto. qofka insaanka ah hadduusan waxba baran damiinuu ahaanayaa. sidaan la socono nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam aan diinteena ka baranay, ilaahayna diinta nagu sheegay nabiga oo risaalaha watay nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam ummadiisana ugu tagay, waxay tahay inay aayadihii ugu horeeyay ee qur-aanka jibriil markuu u meerinayay uu ku bilaabo iqra aqri. qofaan waxba qorin waxna aqrin noloshiisa markasta waxay noqonaysaa mid qasan, aanan fahmada u furmin. haddaan hore niigu sii socdo walaalahayga qaaliga ee Soomaaliyeed, waxaa loo baahan yahay qofka inuu waraaqdaas uu ku qoro hor ahaantii marka noloshiisa maalmeedka ah. 5 maalmood ama 6 maalmood ama 5 maalmood ama 6 maalmood isbuucii dunida saan ognahay dadka way shaqo tagaan ama waxay qabsadaan hadafyada shaqada la mid ah, taasoona ugula jeedo qofka hadduu xanuunsan yahay uuna shaqo tagi karin inuu inta badan biilkiisa maareeyo isku dayo meeshuu ka maareyn lahaaba. hadduu qof shaqo taga yahayna shaqadiisa u kalaho uu sameeyo. 5taas maalmood oo la doonayo qofkaas inay guri nidaamsan, firaash nidaamsan, aqal nidaamsan inuu ka soo kaco, taasoo u fududeynaysa noloshiisa inaysan waxyaabaha keena ilowshaha ama wax iska lumidda ama wax isku daadsanaanta nidaam la-aanta ka hortagta. waxaa la doonayaa qofkaas waxyaalaha uu maalmeedka isticmaalo inuu meel ku ogaado. waxa uu maalmeedka isticmaalin uu dhifii qaliil isticmaalana meel guriga ka dhigta ama aqalka. waxaa la doonayaa inay u qorsheysan tahay subaxii markuu soo kaco ma meeranayaa oo qabays buu gelayaa, ma salaad buu u istaagayaa oo salaada soo hormari doonta, inay maalin walbaba uu qorshe uu ku soo kaco saacad iyo daqiiqadba ku xisaabtamo. saacadda muhiimadda ay leedahay waxaan ka arkaynaa dunida hormartay iyo dadka wax qabsaday maantay, ama ha ahaato cilmiga adduunka ama ha ahaato cilmi kala, inay aan aragno dadka hadaf ama guul noloshooda ka gaaray inay saacad iyo daqiiqad kastaba ay qaali la tahay isticmaalkeeda. hadafkaas anoo tiigsanaya walaalahayga qaaliga ah ayaa waxaan usoo dib noqonayaa warqadii iyo qalinkii, taasoo la doonayo aroortii markaad kacdo ilaa aad guriga ka baxdo 5 maalmeed inay isku qorshe ahaadaan. daqiiqadaas ama waqtigaas aad ilkahaaga u meereysa ama cadeynayso,
daqiiqadaas oo intaasoo daqiiqo aad ku xisaabtamaysa inay salaadaada tahay maadaama dad muslimiin aan ahay oo tukada. maasha allah. daqiiqadaas ama saacadaas aad ku xisaabtamaysa inay aad jirkaaga meerto, labisto, furaashka aad ka soo kacday inaad nidaamsato, waqti aad leedahay oo daqiiqadooyina aad ku cuntayso iyo waqti aad leedahay aad isku nidaamso irdaas aad uga degto, aad ka raagin noloshaada saad ku maareen lahayd irda uga degato. waqtiga oo qaali ah walaalayaal, saan nii sheegay, qof aana waqti ku soconin waa qof iska ugaarsada ah sidii xawayaankii. laakiinse xawayaanka noolaha xataa waqtiguu ku socdaa, waqtigaa gaajada qabataa, waqtigii ugaarsiga aadaa, waqtiguu ku soo laabtaa, waqtiguu ilmihii oolaadiisa ku maareeyaa, waqtiguu aqalkii habeenka qabowga ku dugaarsan lahaa diyaarsadaa. saasaa la doonayaa inuu qofka karaamaysan, waxa adduunka ugu karaamaysanna waa insaanka inuu nidaam waqti leeyahay iyo guri aqal kala nidaamsan, wax walbaba meeshooda inaad markaad ka soo qaado aad isbarto meeshii waxa ugula talagashay inaad ku celiso. weelka aad wax ku cuntay isla daqiiqadaas aad dhaqdo, taas oo kuu fududeynaysa inaad hadhowto wixii aadan kugu badan, hooshiina kugu badan, adigana dhabar xanuun aad ka qaadin, noloshaadana ay xoogaa ay ku noqoto mid culeyska kaaga degtay. qodobka labaad haddaan usii dhaadhaco walaalahayga qaaliga ee sharaftii qiimaha iyo qaayaha iga mudanay Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. qodobka labaad haddaan usii dhaadhaco buuggaas ama warqadaas iyo qalinkaas oo la doonaya xataa inaad nidaamka aad ku qorto 5 ama 6 maalmood aad hadafkaaga nololeed aad u tagto banaanka uu noqdo mid qorsheysan oo asagana waqti ku socda, waqti aad banaankaas ka soo dhamaato, waqti aad shaqada gasho, waqti aad shaqada ka soo baxdo, waqti aad waraaqadahaaga soo dhamaysato. dadka waxaan sheegayaa qurbo joogta taas hadday ay Afrikada kale tahay ama Soomaaliyana waxay noqonaysaa meel aan waraaq laga qorin hatoor ma jirtaba. waraaq la'aan iyo qalin la'aan wax socda ma jirto. marka ama waraaq ha ahaato ama ha ahaato howlo kale inaad 5-6 maalmood nidaamkooda isku mid ahaadaan, isku waqti ahaadaan, aad ku maareyso. waxaa kuu soo haris 1 maalin ama 2 maalin. inta badan insaanka 2 maalin oo fasax bay leeyihiin. maalinta koowaad ay fasaxa aad leedahay maalinna siina inay kuu noqoto ma habboona, sidaad hadafka ku gaarto nolosha wanaagsan ee nidaamsan. taasoon ugula jeedo maalinta koowaad oo nasiinta ah waxaa fiican inaad howshaada kala qabato, ama adeeg ha ahaato ama ha ahaato wax oo hobbigaaga aad adiga jeceshahay inaad ku dhaqaaqdo oo ku dhiirigelinaya, farxad ku gelinaya, ama ha ahaato biibita aad kasoo biicabto ama kasoo sheexabto ood kusoo sheekaysato, dadka aad kusoo nifisto, maskaxdana waxay ku jiray aad soo nifisto. ha ahaato qoys haddaad leedahay, qoyskaagood la dhanbabaxday oo aad dalxiis yar oo magaalada la soo gasho maalintaas, taas oo ayada xataa qalbiga insaanka uu u baahan yahay. waxyaalaha yaryar aad jeceshahay maalintaas aad soo suubsato. hadday howl kuu taalana howl yar aad qabsato oo laakiinse ha ahaato wax aad jeceshahay. maalinta labaad oo la doonayo haaf inaad ka nasato, nasiinta oo ah jirkaaga inaad nasiso. ma aha maalintii oo dhan inaad jiifayso, habeenkii ku xigana aad shaqada subaxeeda aroorteeda leedahay saas asriirta ugu jiifayso. taas waxay tahay caafimaad dare walaalahayga qaaliga.
laakiin waxaa loo baahan yahay wax la dhaho nasiinta ilaa ay barqada iska hurda dhamayso. quraacda aad u goyso oo aad ka bilowdo qado ilaa ay qadada laga gaarayo jirkaaga sariirta uu saarnaado, sidaad waxa la yiraahdo daciifka jirka inasiin la'aanta aad uga qaado. jirkaaga hadduu kuu nasado barqad aad gaartana waxaa fiican howsha guriga inaad iska qabto inta waaweyn, ama albaab dhaq, ama darbi wax ka fujiyaad kaaga dhigay, ama beer aad leedahay guriga dhexdiisa ka shaqayso, ama daaradda isbuunyayo ooma ku dhaq. waxyaalaha waaweyn ama suuliyada iyo musqulaha qabeyska iska dhaq. waxyaabaha waaweyn ama armaajooyinka iska dhaq. waxyaalaha waaweyn inaad qabsato, taasoo inta badanna la doonaya xataa saacad inay ku shaqaysoon kugu qaadan 2 saac iyo bar ilaa 3 saacadood. kadibna la doonayo inaad adigoo iska nasanaya meelahaaga iska joogto, cashadaada iska karsato, hadda cibaado ilaahay aad samaysanaysa iska samaysato. hadafkaas walaalayaal ama ficiladaas waxay keenaan nolosha inay noqoto mid jirida ka nidaamsan, ama meeshay ka aasmato ay ka nidaamsan tahay. haddaad noloshaada maareysana aadna naameysana waxay ka dhigan tahay qof asaga laftigiisa mas-uuliyad iska qaadi karo hab noolaadka. qofkaas oo insaanka ka liita ama kuwa ay ka jahwareersan tahay nolosha aas-aaskeeda ku saacidi kara ayaa noqon doontaa. haddaan intaas ka gudbo walaalayaal oon horo nigula sii socdo, waxaa jirta marka intaas haddaad nidaamsatay waxyaalaha waaweyn sidii shaqo la'aanta. hadday shaqo la'aan ku hayso, haddaad doonayso gobolka ama magaalada ka guurto inaad meel kale u guurto oo ciilkaa heeyo, haddaad doonayso inaad qarash ama dhaqaale aad tabcato, haddaad rabto nolosha saas u socoto alan cun cab ismaarey ay baasiska siday u yaqaaniin afka qalaad ay aas-aaska nolosha un ka dhisan ma aha. sidaan la socono bili-aadan haddaan nahay waxaan nahay wax adduunyo intaan joogno hamigeena weyn. mar walba waxaan jecelnahay inaan hore u soconno oo kabcano. sidee nolosheena marka ku kabcin karnaa? aas-aaskii waan igala soo qayb qaatay walaalayaal. haddana waxaan usii dhaadhici doonaa waxyaalaha waaweyn ee lagu maareeyo insaanka oo kabcinaya. taas oo ay tahay hadday shaqo la'aan ku hayso aad istiraatiiji ama qorshe aad u degto noloshaada meesha aad ku fiican tahay, ama waxbarasho ha ahaata aad soo baratay, ama cilmi aad adiga isku tabcisa, ama heybad ha ahaatabe aad ku fiican tahay. maxaad qaban kartaa ood ka caajisi karin? su-aasha ah. inta badan waxaan aragnaa 65% bili-aadanka inay shaqo madax intay u galaan ciyow ay buurtii waxay dhahaan soomaalida. haddaan soomaali nahay waxaan dhahnaa nin buurtaad orod ku korto orodaad uga soo deganaysaa. shaqo waxaan galnaa aanan anaka jeclaysan oon dhaqso ka xiisa dhacno, ama waxaan u galnaa hadaf lacageed intaan maal raadis nahay, ama aan insaan haddaan nahay waa iska jecelnahay lacagta iyo maalka. dhabar jab iyo culeys badan iyo caafimaad dari ayaan kasoo qaadnaa. waxaa fiican marka haddaad shaqo aadayso inaad noqoto qof shaqada uu noloshiisa jecel yahay inuu marka hore qabsado, ama waxbarasho ha u galo oo tacliin hadduuna aqoon lahayn waxaa la dhahaa baro.
barashadana wax ceebaa mahahee walaalahayga qaaliga waa wax dunida xigmad ku dhisan. qofaan wax soo baran sidaan nii sheegay waa qof dunidiisa iyo noloshiisa qasan tahay. haddii wixii aad ku fiican tahay oo practice ama gacan qabadkeeda aad ku fiican tahay inaad baadi goobto, ninkaa war badan dhaxalka aabbahaana waa kaa dhaxlaana waa ku maamaahnaa. waxaa fiican noloshaada inaad ku dhiirigeliso inaad ku keensan karto shaqadaas, waxay kugu qaadataba aad ku dhaban adeegto, taas ood dhaba areegeeda aad ku keensan karto. haddaad wax kastaba ha ahaatee lacag doonaysa inaad tabacato oo maal rabto inaad tabacato, waa marka hore aad maalka u shaqo tegaysa inaad ku xisaabsantaa intaana biil bishii igu baxda ama isbuucii, intaana aniga isku maareeyo waa waxaan isku meeri lahaa ama gurigeyga aan ku dhaqi lahaa, intaana waa gaadiid raacayga. maxaa iga go'an marka haddii lacagta cariiri igu tahay? maanta haddaan $1 soo qaato aan 3 qaybood qayb aan meel ka dhigto aan nafta ka cariiriyo, biri waa ii tabcaysaa. birita waxay noqonaysaa waa ii aruureysaayo waxbaan hadaf baan ku gaari karaa. taasoo ay tahay dhaqaalaha inaad isbarto buug iyo qalin ku qorto. waraaqdaas iyo qalinkaas aad wax ku qoraysa ma aha dad shirkad waxaad contract aad la gelayso ama aad kula heshiinayso. heshiis qof kale ama insaan kale aad la gelaysa ma aha. si kastoo waraaqii qalin wax kasta heshiis lagu dhameeyo, waraaqii qalin u yahay walaaleyga qaaliga. tan waa mid adiga iyo naftaada aad kula heshiinayso. maadaama nafta ay jeceshahay raaxada, maadaama ay jeceshahay wax kasta inay si fudud ku hesho, waxaa loo baahan yahay dhiirigelin iyo dadaal badan naftaada inaad barto oo karti u yeesho. baahida aad qabtana ay naftaada u dhaban adeegi karto. taas baa keenis karta inaad heshiis waraaqadeed iyo qalin la gasho noloshaada. sidaan haddeer qodobkii ka horeeyay nigu soo hadal qaatay waxay tahay aas-aaska nolosha sidii loo dhiso. qalinkan iyo waraaqdan oo kugu saacidaya inaad heshiis la gasho u dhabar adeegto. hadafkaagaas markaad gaarto oo tabacato, waxay qodobka 3aad aan usii dhaadhacayaa walaalahayga qaaliga. waxay noqonaysaa qof aas-aaskii ka dhisan, noloshii hadafkiisiina u dhaba jira, inuu xagga dhaqaale iyo xagga waxqabadba aad ku dhiirigelisay noloshaadii ay usii socoto. qof nidaamsan baad noqonaysaa. qoys baa yeelanaysaayo qoyskana waxaad hadhooti ilmahaaga ama xaaskaaga ama ilmahaaga iyo sayigaaga waad maareyn kartaayo nafla kale baad mas-uul ka qaadi kartaa. taasoonan waraaqda iyo qalinkana muhiim u tahay. maxaa yeelay haddaad owlaad dhasho ama lagu dhalo ood waalid noqoto, waxaa la rabaa as-aaskii nolosha adiga isoo bartay inaad dhaxal uga dhigto oo duruus uga dhigto owlaada aad dhashay oo mas-uulka ka qaaday, kaasoo hadhooti nidaamkii as-aaska guriga ahaa iyo nidaamkii waxqabadka iyo waxbarashada iyo waqtigii lagu adeegayay aad ku dhiirigelinayso guriga uga soo tabcayso. taasoo hadhooti ruuxaas aad soo barbaarisay noqonaya ruux asna dhaxalkiisa iyo dadka uu wax xididka la ah iyo dadkuu macruufka leeyahay qof u faa'iideyn kara, asagana wax laga sii baran karo noqon kara. sidaad ogtihiin nolosha wanaagsan walaalayaal ay nidaamsan waa wax la kala dhaxlo. waxaad noqonaysaa sidoo kale
qof mas-uuliyad qaaday kaliya noqon maysidee qof walaalka iyo asxaabta iyo dadka bulshadu ku dhaqan yahay wax qabad u samayn karo karti iyo dhabar adeeg iyo hadaf nololeed iyo farxad gelin iyo degnaansho ku dhiirin gelin kara. intaas ayaan doonayay maanta walaalahayga qaaliga qiimaha badan ee Soomaaliyeed inaan nila wadaago qodobkan ayaan doonayay fiidiyogan. dhammaantiinana waxaan rajaynayaa inaad wax igala faa'iido qaadateen. waa isku soo noqod dambe xiiso leh iyo fiidiyowga dambe. waxaan iga tegay salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan dunida iyo aakhirada.